I want to welcome the Governor of Garissa, His Excellency Ali Gullo. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مدحوينها دولة فدرالك الصومالية، مدحوينها بونتلاند، مدحوينها شكا ومضى ماشي سكوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبدوا مهتنتين ساد نوسو نويسين وحان ما تعركا صومالي من ماذا يدين أدو ويناتي waxaan u hambalyeynaa madaxweyne cusuban ee la doortay deeni annakana garab baan idin nahnay. saad og tihiin dowladda Kenya qayb weyn bay ka qaadatay dib u dhisita Soomaaliya. maantana waxaan idinka wadnaa salaan madaxweynihii Kenya Uhuru Kenyatta, dadweynaha Kenya, walaalihiin Soomaalida degan gobolka NFD iyo 240,000 oo qaxooti oo Soomaali oo gobolka aan madaxweynaha ka ahay degan, ayagana way idin soo salaamayeen. waxaan u malayn waxaana soo haysaa soddon guurihii burburka Soomaaliya baa soo socda. Soomaalina maanta meel walbay adduunkan geed ku aaranta. maantana meeshan wax naga maqan ma leh. waxaan u malayn wax inta madax meeshay Soomaali ka tahay madaxweynihii kilinka shanaad ee Ethiopia kaliya naga maqan. tala meel kale oo laga sugi ma leh. Soomaalida wax kale oo maqan ma leh. inteenan meesha maanta fadhido oo madaxweyne Farmaajo uu noo weyn yahay yaa tala laga sugayaa wadankan siduu ku degi lahaa oo loogu soo noqon lahaa. Soomaalidana waa la dhamaystay waana la daalay. inka qaxootiga dhadhaab ku jiro meesha aanay haddaan madaxweynaha ka ahay cunugii aabihii ku dhashay qaxootiga maanta waa 9 jir. aabbihiina qaxootinimo ku dhashay. dadkeennina meel walbuu ku aarayay. daraad waxaan ka imaaday Finland 200 waxaa degan 22,000 oo Soomaali baa degan oo kulaylka habeen saddexaad markay soo dhaweeyeen wuxuu ahaa -15 degrees. dhulkooda inay ku soo noqdaan bay rabaan. walaalayaal dadka aan u talino soddon guurihii wuu soo socdaa, waqtiguu soo dhawaaday. dhibaatooyinkeennii 30kaas sana ha nagaga ahaadaano. aad baan ugu faraxsanahay isbeddelkii muxuu ahaa madaxnimada meeshan sida nabadda aad madaxweynihii lixaad ugu doorateen. annaka garab baan idiin nahnay. weliba reer Puntland waxaan u mahad celinayaa dad shaqaalo badan oo Kenyaan ebaad shaqo qorteen. ninka wax barateen maan maqlay oo dadka ayna noo soo celisiin marno inaad noo haysiin oo shaqada idin shaqeeyaan ma rabnaa. marka walaalayaal waad maasantiin. assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.